hadda sanadkii hadda dhamaaday 2025 dambiyada markii dambi laga dhigay dambiyada ugu badnaa ee la galay marka argagixisada laga tago waa dambiyada ah xoolaha ciidanka oo la xaday macnaha qofkii la lunsaday macnaha anaga inaan qofkii hubka lunsaday xirnaa oo xukunaa oo xabsi geynaa waa un calaamadihii wala dagaalamay astaamihii mugta laakiin xididkii maaha waxaan maxaa sabab weey maxaa qaldan ma sida loo qoraa qaldan ma mushkiladda dadka la qoraayo naftigooda la xulin waxay u baahan yihiin sidaan oo kale in aad loo sameeyo cilmi baaris laga sameeyo waa hal dambiye fara badan oo saas u dhaca oo soo laalaabtay ilaa waxa la rabaa caqabadii shala taagneed sanadkii hore taagneed in sanadkan taagnaato lama rabo markee Hussein iyo dhalinyaro badan oo asxaabtiisa halkan fadhiyo uga jeedo iyo dad badan oo Soomaaliya shaqooyinkaas qaban kara waa jiraan wasiirkan oo dhihi doona qabta marka inaad naga saacidaan ayaan rajaynaynaa anaga hay'ad ahaan waxaan idin furaynaa galalka meesha yaala si cilmi baaris ugu sameeyaan oo wax ugu soo saartaan naftigeena waa idinka saacideynaa qaybteena maxkamadaha ciidamada oo ka shaqeynaya cilmi baarista aad ay muhiim u tahay oo waxa la yiri dawladnimada casriga aad ay muhiim ugu tahay dawlad adkaysi leh oo qorsheynaysa mustaqbalkeeda iyo dawlad nugul oo xaaladaha maalin kasta dhacay ka jawaabayso farqiga u dhaxeeya waxay ku shaqeeyayaan go'aanka waxay kala qaadanayaan iyo sida labada dawladood ay kala ahaanayaan wax waa hadba sidii cilmi baarista muhiimadda u saaraan waayo dhanka amniga qaranka marka la fiiriyo ama amniga guud marka la fiiriyana aad ay muhiimadeedu si badan tahay maxaa yeelay dagaaladii hadda dunidu waa isbedelayna lid dagaal waagi hore laba saf la soo gali jiray waa la isxabaday jiray labada saf hadda in la kala guulaysto waxa lagu qiimeyn jiray dhul la kala qabsaday magaalooyin la kala qabsaday calna laga taagay magaalooyinkii waxa lagu qiimeyn jiray hadda wixii waa isbedeleen koox waxa timid safka aan soo galin boqolana dagaalayso dig soo tiri kooxdaasi marka waa shabakad isku xiran ma aha ciidan isku safan ma diriskaaga ku jiri kara ganacsadaha ku jiri karo nin diin ku dhuumaya ku jiri kara qof kasta ku jiri karta saaxiibkaaga ku jiri kara waxay u baahan yihiin marka kooxdaasi inaanan calaamadaha iyo markuu qarax dhacay iyo markuu dagaal dhac kaliya la dagaalinay in xididada iyo meesha ka soo baxayaan iyo sababaha la dagaalama ay aad ay ugu habboon tahay saas darteed madaxda idaa ay garanayso oo wasiirka xarumo badan meelo uu ka furay wasaaradda intuu soo guuro hal abuuro oo ama luqadaha lagu hormarinayo ama cilmi baarista lagu tilmaamayo ayuu sameeyay dadkii ka faa'iiday ka shaqeey lahay hadda cilmi baarista dad Soomaaliya qoray Hussein maalinta SOB qoray hadda kana Soomaali caadi ah meeshan ku qoray ina saad isugu dhawaanay tusay macnaha Soomaaliya ku qoran luqad Ingiriis kuma qoran meeshan marka ina dadka Soomaalida ah ee shaqadaas qabanayo la dhiirigeliyo oo shaqada loo dirsado anaga hadda tabarteena waa yartahay waa laakiin waa wacana dad badan oo halkan fadhiyo dhowr jeer aan wacay Hussein igu xiraa jiro iyo qaar aan hor isku naqaanay oo dhahan waxaan nagala shaqeeyay aan dhahan marka cilmi baarista wasiirka arintaasi uu gabagabay doono Yemen anaga markaan dhalanaba Yemen waa maqlayn xuuti dheh ama Yemen dheh wax dad badan ka dhawaajiyo xiriir adaga ka dhaxeeyo Soomaalida iyaga taariikh fog leh diinta dhaqanka xuduudda wada leenahay gaalaan golaas waqooyiga iyo bariga xuduudaha iyo sidii badda xagga badda aan leenahay waa taariikh fog oo la dhahayo ama biima dhaqan birna ma goos wixii dhigi jiraan naga dhaxeeyo marka la fiiriyo marka xiriiradaas naga dhaxeeyay markii dawladihii daciifeen oo ama ay burbureen xiriirkii ganacsi oo badda maraayo oo dadka ka dhaxeeyay wax badana waxa gacanta ku dhigo kooxo abaabulan oo dambiilayaal ganacsi sharci darro ka shaqeeya waxyaabaha aan aragnay ama aan ogaanay waxa kamid ahay waxa aad looga shaqeeyaa waxa la kala gudbiyaa waxyaabaha sharci darrada la kala gudbiyo waxa kamid ah duurjoogta ama maxaa la yiraahdaa dadka ugaarta marka hadda dhanka Soomaaliland aad ugu badan haram cadka ugu badan iyo bahalada ama Ethiopia laga soo qaadaa sharci darro ama Kenya laga qaadaa halkaas laga gudbiyaa carabtan halkaas joogto libaxi iyo haram cad uma baxaan meesha laga keen inta laga qaadaa macnaha
waxaa kaloo loo gudbiyaa shidaalka iyo hubka iyo halkaasaa laga gudbiyaa waxaasi marka waxay dhaleen oo annaga maxkamad ahaan waxyaabaha na soo gaaray kiisaska waxaa ka mid a kooxahaasi waxyaabihii kala gudbinayeen waxaa ka mid a dembiilayaal caalami ah ay kala gudbiyeen maxkamadaha dadka la xukumo hadda xabsiyada ku jira waxaa ka mid a nin maleesiyaan ah ayaa arday ahaan u yimid yaman arday wax ka bartuu ahay kulliyadda daraasaadka islaamka barta halkaas wuu ka soo gudbay wuxuu soo gelay soomaaliya isagoo soomaaliya ka dagaalamayo shaqada ku guda jiraa la qabtay xabsiga dhexe xamar ku jira maxkamadda la keenay waa la xukumay sidoo kale nin oo ingiriis ah oo dhalasho ingiriis leh ingiriis ah cadaankaana ah marka hore halkan iyo Kenya ka soo galay mar dambe alqaacidada halkaas ku xoogaysato rabay inuu gadaal u noqdo markuu aaday doontii ku tagay ku soo celiyeen eegi markuu halkan ka soo dagaal soo xiray asagan xabsiga u tirsanaa marka mushkilaadka jira maxaana saldhig u ah waxaa ka mid ah oo kaysas loo haayo practic ah dembiilayaasha la kala gudbinayo waxaana kulli sabab u ah arrintaasi labada dhinac dawladahooda markay daciifeen arrintaas aad u xoogaysatay markeedii hore dadka Yemeniyiinta iyo dadka Soomaalida ah dad iska qaraaba oo guur ka dhaxeeyo oo dhaqan ka dhaxeeyo oo hadda Soomaalida wadamada ugu badan ay markay baxday ay degantahay Yemen kamida Yementa Soomaali naftigeeda Yemeniyiina joogo halkaas waa la joogaa sidaas la isugu xiran yahay dadku dad oo kala go'aya ma oo ilaa iyo markii dunidan la uumay heshiis iyo waxay ahaayeen dad oo waxaana sababay runta isku dhawaashay hadda markaad Saylac iyo halkan tag ka cabirto Saylac rabto aad aado Yemen tagta rabto 140 dhowr kiiloomitir ay isku jiraan dhinacaan Boosaaso markaad tagto 360 camal marka berbera tagto 260 camal saas oo macna kiiloomitiraadka saas la isku dhawaay macna waxa waaye marka halkan ka qadayso maghrib waxa u duwa kartaa Yemen waa macna halkaas aadi kartaa xiriirka halkaas asaasa xiriirkaas marka wuxuu keenaa hadii aan daraasaadkan iyo xigmadahan ay soo saareen macadka saldhig oo soo saaray aanan laga faa'iideysan inuu hadhoodi xiriir ay baahla galeen dad baahla ay kala gudbinayaan dadka oo isku bedelaan marka aad u maasantihiin anaga markii la badiyo cilmi baarisidan oo kiisaska iyo mushkilaadkan haysto la ogaado wax badan oo xal in la helayo ayaan aaminsanahay oo dadka ciidanka loo dhiibay qaldan ma ciidanka si loo qorayo qaldan ma wax badan as dhex socdo marka dad badan oo dhex uga soo dhaca bahasha jiro waxay u baahan yihiin marka in daraasad iyo cilmi loo kala saaro u baahan yihiin arrintaasi markii naga la shaqeysaan ayaan rajaynaynaa aad u maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.